dadka iyo dunyada ku nool deegaanada gobolka Salal oo abaara baan ay saameeyeen ayaa waxa deeq raashin soo gaarsiiyay wadanka aynu jaarkana ee Djibouti iyagoona u soo wakiishay barasaabka gobolka Salal Farxaan Xasan Cabdi isagoona ugu qeybiyay banka u dhaxeeya tuulada Ashacado iyo Ceelgaal oo inta badan ay ku nool yihiin dadka abaaraha baan ay ku dhufteen dadkan iyagu halkan iskugu yimiday oo iyagu ah dad aad u tiro badan ayaa markaad aragto waxa wajiyadooda ka muuqday dif adag oo ay kaga tagtay abaarta aadka u daba dheeraatay ugu horeyntina waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Salal Farxaan Xasan Cabdi waxaan ku codsanaa gudida abaaraha ee xukuumadda mudane madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo u magacaabay qaranka in ay wixii ay ku caawin karaan ummadan deegaankani waa deegaankii oo gudida loo magacaabay yani sifihii gudida loo magacaabay ayaa ka muuqata halkan oo ka jirta sidaa ogeed waxaan gudida abaaraha ka codsanaynaa in wixii ay ilgaara ku eegaan oo ay soo gaarsiiyaan habba wixii ay heli karayaan dadkan deeqda raashinka la soo gaarsiiyay ayaa waxa ay u mahad celiyeen wadanka aynu jaarkana ee Djibouti sidoo kalena waxa ay baaq u direen xukuumadda Somaliland in ay u fidiso gargaar bini'aadantinimo iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa cashada waxaana na siiyay in badan oo deegaan dadku inina iska fakan tahay waliba mahad Allah aan leenahay abaaraha nagu dhacay muurku naga dhintay awrta iyo dameeraha midba nooma noolo arigu uu naga duumay dadku cidluu jooga haddii aad noo soo biirisiina ma nacayno haddii kalena walaal ood intaade noogu talagasheenna magana la laakiinse dadka in baaqata caanihii shaaha noogu sii xun adduunyada abaar baa ka dhacdo caanaan doonaynaa walaalahayo oo reer Djibouti oo raashinka noo keenay mahad alle oo magan alle naga soo gaadhay waxa noogu xunna walaal abaar baan joognaaye adduunkii uu naga dhamaaday way naga fadhiisatay way naga fakatay sida aad noo soo jiscinteen ilaahay jiscin fiican iyo caawimaad neesiye caanihii baa noogu xun oo noo haray walaalahayaga reer Djibouti xilli aan maanta u naqanahayna soo xasuustay waanu mahadnaqaynaa muurku naga dhamaaday arigu naga dhamaaday hareed baan laayay daraya maanta nagu dhan walaalahayaga reer Djibouti waanu mahad celinaynaa laakiin soo in dawladda maaragtaanay Somaliland inayna soo xasuusataan rajaynayna reer Djibouti waa kuwa soo xasuustay waanu mahad celinaynaa way ka dhantaa laakiin dawladda Somaliland inayna soo xasuusato maanta iyadana ka rajaynayna oo ka sugaynaa ka doonaynaa wuu si laabay marka si kale ku gaari weeyay barasaab wuu si laabay saddex laab ka dhig markii laabkii loogu tala galay saddex laab uu gaarsiiyay inta waxa hadhay inta leeb maanta wixii halka joogay way gaari intaana harsana haday dalka iyo dibadiisa batay wixii caawa TV-da daawan doona deegaankaasi waa gobolka Salal waa dadkii abaaraha la soo barakacay abaartay halkan ka soo qaadeen badeeda ka soo guureen waxayna soo galeen badeedii kale markay hirdiyeen way nagu soo noqdeen maxay sameynayaan badii baa soo ceshatay deegaankii iyo tuulooyinkii iyo dhul oomanay sida u yaala waxa u dheer umada muurkii oo ka dhintay caafimaad la'aan jadeeco abaartani ku habsatay shacabka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa iyadu ay u dheer tahay caafimaad darro biyo la'aan waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhigadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Zeylac